كورة جعلكي وحلا ويلكم مركز حبيبي وانجيسي قاسف ومرعلنا حبيبي ما شاء الله حبيبي إلا صبح بواقصة ساكنة قصة تمد maxaa ka dhaxay xamdi bilan iyo abwaangeesi maxay haysatay jacaylka cusub ee maanta la sheegay ka dhex xurtay balse marka hore waxaan ka codsanaynaa tan muuqaal guda galin inaad muuqaalka like saarto soo kala subscribe ka YouTube ka noogu sameeyso sina share gareyso kamaralkan furasaan ku dhaafin warbixinada iyo muuqaalada sharafta badan ee soo gelino saaxiibayaal waayo muuqaalka aan soo gelino aad like saar weydaan wax sharaf ah noogu jirto ee waxay noo tahay leegtiinu sharaf iyo karaamo balse waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa xamdi bilan iyo abwaangeesi oo jacayl cusub ka dhex bilowday hadda abwaangeesi oo sidoo garanaysan ba YouTuber leh kana soo jeeda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa ku nool hadda magaalada Istanbul wuxuu shalay ku soo dhaweeyay Istanbul isla xamdi bilan oo butooyinkii ugu dambeeyay lagu xamaray Mursal Muuse balse ahayd xaas la qabay ayaa shalay markii Istanbul ay tagtay waxa qalkiiba ka soo yeeray cod muuqda inay saaxiibad tahay sad muuqaalan ka argaysaanba waxay sheegtay inay tahay jacaylkiisii dhunkashaduna waxay kaga dhacday dhabanka yalla yaa xisig balse waxay u muuqataa jacayl dhaba sidoo afkiisana ka sheegay waxa weeyaan waa jacayl dhaba amba lama huraan abwaangeesi iyo xamdi bilan oo muddo badan wax soo walajilay marna uu ku sameeyay isla baraankii hawaan ku jecelahay balse hay gaashaanka oo doortay u sheegtay inay nin leedahay inuu ka faraxsan tahay xamdi bilan dhinaca kale waa hooyo haysata hal canug aabihiina ay isku faraxsanaayeen balse muddooyinka dambe la soo sheegay inay jacayl kale iyo xidhiidh kale abuurayso waxayse abwaangeesi u dhibtay fiyooryaal cagaaran isaguna sidoo kale u dhiibay wuxuuna jamaca amba dadka inta ay hortooda ka sheegay amba baraha bulshada inay tahay jacaylkiisa iyo saaxiibadiisa labadaba balse wuxuu dhabanka u saaray ugu dambeeyna wuxuu siiyay dhunkasho diiran balse isweydii adiga ahaan muuqaalkan daawanaya maxaa ka dhaxayn kara xamdi bilan iyo abwaangeesi maxayse tahay ujeedka u tagtay Istanbul oo ku sugan yahay markii hore abwaangeesi maxayse tahay farxad iyo reereynta ka muuqata saaxiibkii abwaangeesi hortiina ka muuqda kadeedkii wuu dhamaaday kolkeenii baa la gaaray kolkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey kunjeer farax maalintaada way kunjeer farax maalintaada kalaamka uu dhamaaday sad fiidiyogan ka arkaysaan baa TikTok ay soo galisay barteeda TikTok isla xalay toole markii ay ku sugan Istanbul shalay galabnimadii waa fiidiyo ka turjumay inay ku faraxsan tahay jacaylka cusub ee la sameeyay abwaangeesi balse ilaa fanaanida oday male amba samale hin qof u gaara ee ki soo gaadhaaba waa keedii odahan saaxiibnahay ayaan bari la kaftamay waxaan weydiiyay adeer waliga ma guursaday gabadh fanaanada waxa uu sheegay inuu guursaday balse uu kala garan waayay inuu isagu qabay iyo inay cid kale qabtayba ugu dambeyn ahaan siiyay warqadeedii si dhaqso ah anigoo aan eegin waxay qarashiga galayay inay ahayd marwada xataa markaan arkay wixii dharkaygii hayra kala xidhanayaan isla booskan seexanina hawni kala jiifo balse waxay isweydiinta mudan ayaa waxay tahay xamdi bilan ma waxay noqotay fiilan Soomaaliya oo musharaxiinta ugu badan ee Soomaaliya ku tartamayaan mise waxay noqotay kabcadii lagu soo xajay abwaangeesi muxuu noqon karaa xiriirkiisa cusub ee hadda la sameeyay xamdi bilan xaguusa ku soo idlaan karaa xamdi bilan oo ahayd gabadh inta badan isteelkeeda saxda waqti badan ku bixisay isteelkeeda oo inta badan lagu muransanaa inaysan xaafadeeda dambe ka galin iyo abwaangeesi oo ahaa nin dantiisa yaqaana ayaa hadda nolol cusub ku midoobaya balse waan sugaynaa jacaylka iyo farxadooda halka ay ku soo dhamaatay inay noqoto كورة جعلكي وحلا ويلكم مركز حبيبي وانجيسي قاسف ومرعلنا حبيبي ما شاء الله حبيبي كستو كديدي نبتا أنا كل قبي سندا وعادان دايما ذي ساونو لهي كستو كديدي نبتا أنا كل قبي سندا وعادان دايما ذي ساونو لهي sanada waxaan dhimayso noolahay alla wallahi waa ariyo kufle aniga ana xamba ay dareen u beertay heestan oo ah hees aad soo la xameeyay ayaa lagu soo dhaweeyay Istanbul
xamda bilan sidoo kalena abwaan geesi ayaa dhinaceedu ka faraxsan balse waxaa is weydiisay saaxiibayaal maxaa yahay jacaylka cusub ee ka dhex bilowday muxuuse kii lagu sheegay mursal muuse isla toddobaadkan gudihiisa xaguuse ku dambeeyay hore xamda bilan amba ahaa aabaha inankeeda وردان بعانو كيدا حكيسو حريركودي فرنكودي حكوسو حلم فرنكودو دا حلم سحركودو بربري هذا لدا سو دن يو كوا كلو كبدن waxa is weydiinay shacab Soomaaliyeed oo dhigahooda ka guuxayso maxaa ka dhaxeeya abwaan geesi xamda bilan balse saaxiib inta arin muuqaalkan daawashada dhameystan waxaan ka codsanayaa inaad YouTube ka subscribe noogu sameyso soo kala muuqaalka like saarto sina share gareyso waana ku mahadsantiin muuqaalka daawashadiisa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa saaxiibayaal ninka ayaan soo garab istaagay waxaan naga dhigay waana mahadsantiin saaxiibayaal dhamaantiinba balse ra'yigiina ka soo dhiibta comment-kana noogu reeba idinkoo mahadsan waxaan ni soo wadnaa muuqaalkan iyo mid kale oo Wangeesi ka hadlayo inuu jacaylkiisa dhabta ay tahay xamda bilan wixii mursal lagu sheegay in ay waxba ka jirin waxaa dayma dhameystirnaa ko hayna ayaan soo gelin doonaa barteena YouTube